cusbitaalka bilaashka inooga dhigay reer Sanaago dawladda ka maqalmeen ayaan daraahayn wallahi aqligiina lacaayaya xafladda asaaska sanad guuradii koobaad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay cusbitaalka Sanaag Specialist ayaa lagu qabtay magaalada Cerigabo munaasabaddan waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin xildhibaano salaadeen cuqaal madaxda jaamacadaha gobolka iyo shaqaalaha cusbitaalka waxaana ugu horreynba munaasabaddan ka hadlay boqorro waayeel aqoon-yahan waxgarad waxaana shaqaalaha iyo howlwadeennada cusbitaalku ay ku ammaaneen doorkii caafimaad ay ku leeyihiin gobolka garab taaganahay waxaanu si dhow iyo si dheer uga soconaa adeegyada aad ka fudisaan gobolka Sanaag runtii waan idinku hambalyeynaa waa isbitaal goortii loo baahnaa iyo meeshii loo baahnaa bay yihiin insha Allah aniga inta xogaalkayga ah waxaan aad u ogahay isbitaalka gobolka Sanaag ku yaala ee magaalada madaxdiisa Cerigabo inuu adeegyo bilaash bixiyo inagu saynu wada ognahay bulshadeenu waa danyar boqolkiiba 70 bulshada ku nool guud ahaan gobolka ama 80 waa danyar aan awoodin in ay xabada kliniga iibsadaan waxa ilaahay mahadiisa isbitaalka Sanaag inuu tan ugu dhibta badan ee hooyada iyo dhallaanka ah uu bilaash ka dhigay haday ahaan lahayd computer saarid haday ahaan lahayd dalmo haday ahaan lahayd billahi calaykum xagee laga helaa caasimada Hargeysa laga ma helo isbitaal bilaasha lacagtaada ku goysa waan si hambalyeynaya shaqo kasta oo laga qabtay iyo cid kasta oo ka shaqeysa waan soo dhaweynayaa wax kasta oo lagu taageerayo dadka reer Sanaagna waan garanayaa in isbitaallo kan iyo kuwa kale u baahan yihiin sida darteed baan uga mid ahay dadka reer Sanaag in isbitaalka isgarab taagaan ee uu ka hadlayay maamuluhu waxa ka mid ahaa karasharka halka yaala oo laga yaabo inuu dhas iyo buuq iyo waxyaabo keeno way fiican tahay runtii in la kala dheereeyo isbitaalka iyo waxa buuqa keenaya marka isbitaalkan karasharkana dawladda hoosaale waan maqashoonahay haddii loo helo meel ka haboon halka in la geeyo way ka wanaagsanaan lahayd oo laga dheereeyo isbitaalka waayo isbitaalkan waxaan marxaati anigu ka ahay oo ku soo dhaweynaya dumarka inaan anigu laba dumar keenay in ilaa intay ka umulayeen in ay la socdeen ilaa intay ka dhalayeen sida la ajligeed oo aan wax lacag laga qaadan marxaati taana u soo jeedo waana ugu mahad celinaya ayna qabataa ergadu waayo karaksharka iyo caafimaadku meel ma wada galaan karaksharka iyo caafimaadku meel ma wada galaan waayo waa caafimaad hadda xagaaba soo dhacaya karaksharka ciidiisa baa toos u soo galaysa cusbitaalka in laga hortagay fiican tahay bisariica ergada way idinka qaadaynaa anigoo xubin ka ah xildhibaanada gobolka Sanaag arinta waxaan doonayaa inaan hor dhigo degmada xukuumadda maamulkeedu nooc walba yahay ee isbitaalka caafimaadka hooyadii umuleysay ee jidka ku dhimanaysay marka la qaado maanta isbitaalka bilaashka inooga dhigay reer Sanaago dawladda ka maqalmeen ayaan daraahayn adeegyo bilaasha aan xaq ugu lahayn dawladda waxyaabaha inoo damaanad qaaday inaad ku aflisaan waa idiga mahad celinaya waxaan doonayaa inaan mar kale idigu cesho inaad adeegyadaas sii wadaan oo aad sii xoojisaan waxa iman doontaa maalin waqtiyada kamid ah inaad meelo kale oo aanad ka filanayn aad ka heshaan abaalmarinta sharaf bay noo tahay in annaga laftarkeegu aanu qayb ka nahay cusbitaalka Sanaag Speciality Hospital cid walba oo halkan soo gaarsiisay mar labaad waan u mahadnaqaynaa ka jaamacadda East Africa ahaan waan ugu hambalyeeynaa Sanaag Speciality Hospital annagoo kamid ah institutionada bixiya caafimaadka waxa weeye waa macmiilka labaad ee aan adeeg siino ee ugu badan macmiilka adeeg ugu badan aanu siino marka Telesom laga yimaado وتاني أكبر سبون أن لنا هاي وحوي يعني عصبتها ومعميل كلابات أما وسكن كلام كأن لنا هاي شركة ضيادة runtii waxaan aad uga mahadnaqayaa sida kaleerka ah ee paymentiyada iyo tacaamulka fiican ay la leeyihiin dhinaca kalena waxa munaasabada ka hadlay madaxda iyo howlwadeennada isbitaalka Sanaag Specialist waxaana ay hoosta ka xariiqeen inay ka go'an tahay daryeelida dadka u baahan adeegyada caafimaad waxaana ay sheegeen in isbitaalku uu sameeyo adeegyo caafimaad oo bilaash ah howlkan maanta aan fadhino ayaynu fadhinay 25 May 2000
2020 oo ahayd maalintii aan xariga ka jarnay cusbitaalka waxaa maalgeliyey hay'adaha halkaa aad ku aragtaan oo ay ugu horeyso Doterra Healing Hand Foundation oo ah foundation international Jibril Foundation oo local foundation aad wada garanaysaan oo Barkhad Jibril oo founder ka yahay iyo Sanaag Healthcare Foundation iyo Response Med oo ah maamulka gacanta ku haysta cusbitaalka ayaa maalgeliyey ujeedooyinkii loo maalgeliyey waxaan 100% ku kalsoonahay inaan gaadhnay ama aanu haysano tubtii aan loo aasaasay cusbitaalka ujeedooyinkii loo aasaasay bay ka mid ahayd in la daboolo baahiyaha caafimaad ee gobolka ka jira waxaan ku tallaabsanay horumar runtii aad u ballaaran waxaanu dhammaystirnay goobaha qaybaha caafimaadka ee kala duwan guud ahaan waqtigaa uu furaa in ka badan 6,000 oo patient ama ku dhow ayaa dhakhtarku goobihiisa caafimaad uu fidiyey ama ka faa'iidaystay waxa aan maanta ku dhawaaqayaa inaan furayno qayb cusub oo diabetic and hypertension kaasoo aan dareenay inay yihiin xanuunada inta badan ku badan gobolka ama meelo badanba muhiimna aan u aragnay laga bilaabo isniintana wuu furan yahay cusbitaalka Sanaag Speciality Hospital iyo hay'adda Sanaag Healthcare Foundation ba waxay u midaysan yihiin inay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo horumarka gobolka Sanaag kulley waxaad moodaa inaan wasiiradii gudoomiyaha gobolka maayirkii dhammaan xubnaha dawladda casuumaadda iyo invitationka gaarsiinay annagoo xafiisyadooda ugu tagnay dadka wanaagsan ee damiirka leh xafladaha noocan oo kala ah way ku faanaan projectkan waa non profit organization waa adeeg bulsho waa waxaan faa'iido laga doonaynin runtii waxaad moodaa in aanu caqabado badan dareemayno intii aanu ka shaqeynayna ama ku howlanayn arrimahan horumarkii developmentka sanadka hor halkan xafladii aynu ku furayna cusbitaalka waxaa hor yaallay karasharka welina wuu hor yaallaa ergadiimeed mid dhaqan iyo mid odayeedba waanu u dirnay waxaad moodaa inaan weli alaana wax iska bedelay aanay jirin waa tusaale aad u liita oo ina tusaysa shakhsiyadda iyo horumar la dagaalanka magaalada Cerigaba yaalla 7 subaxnimo ayay istaadeen saaka iyadoo cusbitaalku u dabaaldegayo xaflad sanad guurad ahaa 12,000 oo qof in ka badan baa lagu daaweeyay nafo badan baa lagu daaweeyay kulle ergooyin badani way fashilmeen inteena soo isku codahay hadaynu maalin dawladda hoose tagno cashuur bixiyaal baad gobolka tihiin dawladda hoose way ku qasbanaanaysaa cusbitaalka karasharka ka hor qaadaan ugu dambeyntiina waxaa munaasabadan lagu maamuusay shaqaalihii ugu wanaagsanaa cusbitaalka Jaabir Saciid Ducaale Jaabir Bulshaawi Ariel TV Cerigaba